وأن هذا maanta waa maalin taariikhi ah Somaliland waxay ugu suntanaan doontaa baal dahaba maanta ilaahay wuxuu ina gaarsiiyay guul weyn oo dhammaan Somaliland ku guuleysatay oo wixii Somaliland jecelna uu ku farxayo cadawga Somaliland uu ku jabayo ayaa maanta taariikh la qorayaa waxaan hambalyeeyaa golaha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso oo ducaynayaa inay hawshooda si qarannimo u gutaan waxaan hambalyeeyaa 6 murashax ee tartanka u galay 3 kursi ee hogaaminta baarlamaanka waxaan hambalyeeyaa odayaashii maanta maamulay arrinta ee uu kow ka yahay gudoomiyaha guurtida gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe iyo gudoomiyaha maxkamadda sare go'aanada iyo talaqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shir walba mashaakil baa ka hor yimaadee habka qarannimada ah ee u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamulay iyo xooghayntoodii iyo taariikhda ayna gaarsiiyeenna waa ku hambalyeynayna ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna wuu ogaanaya hawsha ay qabteen waxaynu u mahadnaqaynaa golayaasha xubnaha baarlamaanka ee maanta fadhiyey golaha wakiilada ee cusbaa ee doorasho aad isugu dhow ku jiray sida gobonnimada leh iyo isdhowridda ee hadday saqar yar dhasha laysu qabanayay ee laysu aamusinayeyna quruxdaanu kaga soo baxnay maanta Somaliland oo dhan baa guuleysatay nin quri ma guuleysan xisbina ma guuleysan Somaliland oo dhan baa guuleysatay xildhibaanay tartamayay gudoomiyaha baarlamaanka cusub Cabdirasaaq waan hambalyeeynaa oo waa soo dhaweynaynaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad waa soo dhaweynaynaa waanu hambalyeeynaa gudoomiye ku-xigeenka saddexaadna waa soo dhaweynaynaa oo waa hambalyeeynaa gudoomiyihii la tartamayay professor yaasiin waanu hambalyeynaynaa tartan si dhow buu ahaa waa lagu talagalay waa dimuqraadiyad gacantaa la taagay in lagu kala baxo siduu u hambalyeeyey iyo waayeelnimadii muujiyeyna waa soo dhaweynaynaa yaasiin qaranka in badan buu soo shaqeeyey haddana wuu shaqayn doonaa waa oday halkiisii fadhiya maantana gacanqaadkii iyo soo dhaweyntii aad isku hambalyeyseen qarankaa u helisan dhammaantiin waan kugu hambalyeynayaas cumar jaamac oo in badan ku soo jiray mar soo bilaabay miidiyaha jaraa'id qori jiray haddana siyaasadda intaa ku soo jiray malaha dee caaqil la ahaa talada weligii alli wax ku soo lahaa oo isla intaa soo halgamay maanta markii laga helay siduu siciid u hambalyeeyey isagana waan ku hambalyeynayaa waana xeerkii Somaliland lagu yaqaan xildhibaan cali gudoomiyaha saddexaad waan ku hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa qodax oo intaa xisbi ku soo jiray oo siyaasadda ku jiray oo soo dadaalay gacanta markii la taagay meel may tegina Somaliland baa guuleysatay adiguna inaad hambalyeysay waan kugu hambalyeynayaa dhammaanteen waynu hambalyeynaynaa maanta waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa saddexdii la doortay halkana soo taagay saddexdii cusbaa ee golayaasha soo dhawaada gudoomiye hambalyo gudoomiyaha koowaad hambalyo gudoomiyaha saddexaad hambalyo intaas waa hambalyadii maanta waxaan leeyahay waa maalin Somaliland faanayso anoo magaciina Somaliland hadda ku faanayana cadawga Somaliland waxaan leeyahay Somaliland halkaasay gaadhay Somaliland cadawga qura ka soo horjeeda ee maanta xamar isla rafaraya waxaan leeyahay iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba waa daawareyseen Somaliland dimuqraadiyadda ugu furfuran iyo tartanka ugu adkaa iyo qarannimada inay u midaysan tahay oo qof walba Somaliland qarannimada ilaalinayo cadawga Somaliland iyo inta lugta jiidaysa ha ku cibro qaadato waxaan hambaleynayaa shacab weynaha Somaliland ee codeeyay ee maanta u taagnaa
ee dhegta taagayay dhammaantiin waan idin hambalyaynanaa waynu guulaysanay tallaabo horeynu hore u qaadnay qarankana waynu wadaynaa ilaahayna guusha hayna gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu